kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka oo idinkaga imaanaya stuudiyaha hoyga Banaadir TV. barnaamijka ayaa waxaa soo jeedinaya anigoo ah Aweys Maxamed Nuur Aweys Fodey. barnaamijkana waxaa ku soo qaadanaya sanad ka hor maanta oo kale weerarkii Xamaas ku qaaday Israa'iil iyo baroordiiq ay Israa'iil maanta sameynayaan iyo sidoo kale ururka Xamaas oo maanta mar kale duqeeyay magaalada Tel Aviv. waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka. sanad ka hor maanta oo kale ururka Xamaas ee reer Falastiin ayaa weerar ku bilowday gantaalo waxa ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil. mar kaliya waxa isqabsaday tiro gantaalo ah, weerar dhulka ah iyo seeriga digniinta bixiya oo ka dhawaaqay guud ahaan magaalooyinka Israa'iil. maanta oo sanad laga joogo ayay mar kale ururka Xamaas ee reer Falastiin waxa ay weerar gantaalo ku qaadeen magaalada Tel Aviv iyadoo la soo warinayo inay jiraan dhaawacyo. militariga Israa'iil ayaa sheegay in la qabtay dhowr gantaal inkastoo aan wararkaasi si rasmi ah loo xaqiijin karin. weerarkii Xamaas oo maanta laga joogo sanad, Israa'iil ayaa waxa ay qaaday duulaan jiha kasta oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah, weerar toos ah, iyadoo militariga Israa'iil ujeedadiisu ay tahay baabi'inta ururka Xamaas. Israa'iil ayaa maanta sheegtay inay weerar cusub ku qaadi doonto koonfurta Gaza ayagoo soo saaray digniino iyo amaro daadgurayn ah oo dadka Falastiiniyiinta looga rarayo ilaa 4 goobood. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegtay in 39 qof lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay ee dhacay. dhinaca kale hogaamiyaasha caalamka ayaa xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil oo lagu dilay ku dhawaad 1200 qof oo Israa'iiliyiin ah iyadoo qaarkoodna la afduubtay. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dhibanayaashaasi aan weligood la iloobi doonin. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Keir Starmer ayaa ku tilmaamay 7 bisha Oktoobar inay tahay maalin madow iyo xasuuq inay u tahay taariikhda dadka Israa'iil. Jarmalka ayaa sheegay in dalkiisa uu la wadaagayo xanuunka Israa'iil. wadamadan reer galbeedka marnaba soo ma hadal qaadin xasuuqa lagu hayo shacabka Falastiin, hooyooyinka iyo caruurta lagu dilay magaalada Gaza iyo magaalooyinka kale iyo dadka rayidka oo la burburiyay guryahooda, goobaha caafimaadka iyo sidoo kale dhismayaasha iskuulada iyo goobaha masaajidda oo Israa'iil ay burburinayso. taasna waxa ay muujinaysaa in reer galbeedka ay markasta la jiraan Israa'iil, isla markaana haddii 2 qof ama 3 qof ay ka geeriyoodaan Israa'iil in markaasi ay ayagu u tahay murugo, halka boqolaalka qof oo Falastiiniyiinta oo muslimiinta ah geeriyoonaya aysan waxba u arkin. haddaba waxaa jirta maanta munaasabad baroordiiqa oo ka socota gudaha Israa'iil, waxaana xaflad xusa lagu qabtay goobta ay ka socotay muusikada ee Nova, halkaas oo in ka badan 300 qof lagu dilay sanadkii hore. dhinaca kale saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ku dhawaad 42,000 oo Falastiiniyiin ah in lagu dilay magaalada Gaza intii uu socday weerarka Israa'iil. madaxweynaha Israa'iil ayaa isna tagay goobta ay ka socotay baroordiiqda. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna booqday taalo loogu talagalay dadka ku dhintay weerarkaasi, wuxuuna sheegay in Israa'iil aysan dagaal ka joojin doonin ilaa dib loogu soo celinayo lahaystayaasha. Xisbullah ayaa dhawaan sheegtay inay gantaalo ku garaacday waqooyiga iyo magaalada Haifa, taas oo ay ku soo beegeen sanad guur